maxaad kala socotaa dilka loo geystay shakhsigii caayay suubanaheena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya dilkiisa oo ka dhacay gudaha dalkaasi Turkiga iyo dhammaan Soomaalidii iyo muslimiintii halkaasi joogtay oo dhammaan farxad ay ka soo wada yeerayso kadib dilka wiilkan loo geystay ee caayay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee haddaba warbixinteena ayaan saaxiibayaal weydiimaha iyo kuwa kale ayaan idinkaga jawaabi doonaa muuqaalkeena like saar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsan daawade kulanti haboon saaxiibayaal meel kasto oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena ducaysana media haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo ku mahadsan daawade oo muuqaalka like garee wararkay naga soo gaaraya gudaha dalka Turkiga qaasatan Istanbul ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi dil loogu geystay kadib markii la soo qabtay wiilkii Soomaaliga ahaa ee dhawaanahan isaga oo aad u cabsan caayay nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxa la soo sheegayaa in halkaasi toogasho lagu dilay waxaa sidoo kale wararka qaar ay intaasi ku darayaan in dhammaan goobta lagu tooganayay wiilkaasi isla mar ahaantaana uu marayay ay goobjoog ka ahaayeen ummad badan oo Soomaaliya isla mar ahaantaana halkaasi joogtay dhammaan Soomaalidii halkaasi ku sugnaa ayaa waxa ay muujinayeen markii la dilayay farxad iyo hididiilo kadib markii uu caayay una gafay wiilkan nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee isagoona soo galay dhawaanahan markii uu gafay nabigeena Maxamed live TikTok waxaana sidoo kale haatan soo yeeraysa in meydkiisa halkaasi laga qaaday wararka qaar ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku darayaan in markii la dilayay wiilkaasi ay ciidamo Turkiyaan ay isku weer ka qabteen xaafadda lagu dilayay wiilkaasi muddooyinka dambe waxa ku soo badanaya baraha bulshada dad shakhsiyaad Soomaaliya isla mar ahaantaana diinta ka baxay oo sheeganaya inay qaateen diimanka shaydaamanka lagu caabudo iyadoona sidoo kale ay sheegayaan ama aflagaada ay u geysanayaan nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee qaarkood waxa wararka qaar ay sheegayaan haatan saaxiib waxaana sidoo kale baraha bulshada ku soo badanaysa dhalinyarada ceenkan oo kala ku mahadsan daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalkeena la garee oo la wadaag saaxiibadaada ila daawo muuqaalka wiilka haatan lagu dilayo halkaasi ديره والله ديره وسخ